soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga ciyaaraha oo aan idinkugu hayo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka inta uu socdana waxaa ka mid ah Luis Diaz oo iska diiday inuu qandaraas cusub saxiixo isagoo shaaciyay kooxda uu doonayo inuu ku biiro. Bruno Fernandes oo go'aan kama dambays ah ka soo saaray mustaqbalkiisa Manchester United. Jadon Sancho oo dib ugu soo laabtay kooxda Manchester United iyo Chelsea oo dardargelisay saxiixa Hugo Ekitike. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka bandhiga ciyaaraha ku maqli doontaan inta uu socdo. Intaan barnaamijka guda gelin waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii shargareyso. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Aan ku bilaabay Luis Diaz oo iska diiday inuu qandaraas cusub saxiixo isagoo shaaciyay kooxda uu doonayo inuu ku biiro. War cusub oo ka soo baxay The Bill iyo warbaahinta gudaha ayaa daha ka rogay in xiddiga reer Colombia ee Luis Diaz uu si rasmi ah u diiday heshiis kordhin ay u soo bandhigtay kooxda Liverpool isagoo sidoo kale iska diiday dalab qaali ah oo kaga yimid kooxaha Sacuudiga. Waxaa la sheegay in Luis Diaz uu u sheegay maamulka Liverpool in hal meel oo kaliya uu doonayo. Waxaa la fahamsan yahay in uu dareenkiisa iyo rajadiisa ciyaareed u jeediyay Camp Nou, halkaas oo ay kooxdu si dhow isha ugu hayso dhaqdhaqaaqiisa suuqa kala iibsiga. Arrintan waxay soo baxday iyadoo Diaz iyo lamaantiisa ay bartiisa Instagram-ka soo dhigeen fariimo qalbiga taabanaya oo la xiriira macsalaameynta Liverpool. Luis Diaz ayaa hadalkiisa ku bilaabay: qof kasta oo u ciyaara astaanta oo uu la jeedo calanka Liverpool wuxuu maalin uun dareemi doonaa dareenka qiirada leh ee garoonkan. Mahadcelin gaar ah ayaan u dirayaa dhammaan asxaabtayda ciyaartoyda, shaqaalaha tababarka, shaqaalaha kooxda iyo taageerayaashaba. Xil ciyaareedkan lama ilaawi karo, qalbigayga ayuu mar walba ku jiri doonaa. Isla markiiba lamaantiisa ayaa iyaduna muujisay jaceylka ay u qaaday Liverpool iyo taageerayaasheeda. Laga soo bilaabo maalintii ugu horeysay ee aan halkaan nimid, waxaan dareennay micnaha dhabta ah ee ka mid noqoshada kooxdan. Waxaa sharaf noo ah inaan ka mid noqono taageerayaashan. Shaki kuma jiro waa kuwa ugu fiican dunida. Dhinaca kalena, Bruno Fernandes oo go'aan kama dambays ah ka soo saaray mustaqbalkiisa Manchester United. Kabtanka Manchester United iyo xiddiga xulka Portugal Bruno Fernandes ayaa si rasmi ah u diiday dalab mushaar waali ah oo kaga yimid kooxda reer Sacuudi ee Al Hilal, sida uu xaqiijiyay khabiirka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano. Inkasta oo Al Hilal ay hordhigtay heshiis dhaqaale oo cajiib ah, haddana Bruno ayaa doortay inuu sii joogo Yurub si uu ugu sii ciyaaro heerka ugu sareeya ee kubadda cagta. Romano ayaa bartiisa Instagram-ka ku daabacay: Bruno Fernandes wuxuu diiday dalabkii Al Hilal. Inkasta uu ahaa mid waali ah, Bruno wuxuu doorbidayaa inuu ka sii ciyaaro heerka ugu sareeya ee Yurub. Wuxuu doonayaa tartan dhab ah, go'aankuna waa la gaaray. Jadon Sancho oo dib ugu soo laabtay kooxda Manchester United. Xiddiga garabka ka ciyaara ee Manchester United Jadon Sancho ayaa si rasmi ah ugu soo laabanaya Old Trafford dhammaadka bisha June 2025 kadib markii wadahadaladii Chelsea ay ku dhammaadeen fashil sababo la xiriira mushaarkiisa sare, sida uu xaqiijiyay khabiirka suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano. Romano wuxuu yidhi: arrinta ugu weyn ee hortaagneyd heshiiska Sancho waxay ahayd mushaarka. Chelsea ma aysan doonayn inay la jaanqaado mushaarka uu haatan ka qaato Manchester United. Sancho oo si amaah ah ugu ciyaaray Chelsea qaybtii labaad ee xil ciyaareedkii dhammaaday ayaa doonayay in kooxda ay si buuxda ula wareegto, balse qandaraaskiisa qaaliga ah oo lagu qiyaasay in ka badan 300,000 oo pound toddobaadkii ayaa noqday caqabad weyn. Ugu dambeyntiina, Chelsea oo dardargelisay saxiixa Hugo Ekitike. Kooxda Chelsea ayaa si weyn u dardargelisay dadaaladeeda ku aadan saxiixa weeraryahanka kooxda Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike xilli ay tartan kala kulmayso kooxaha Arsenal iyo Liverpool. Ekitike oo 22 jir ah ayaa si rasmi ah ugu biiray Frankfurt xagaagii hore isagoo ka yimid Paris Saint-Germain, waxaana uu xil ciyaareedkii tagay dhaliyay 15 gool isla markaana caawiyay 8 kale. 33 kulan oo ugu saftay kooxda Bundesliga. Arsenal iyo Liverpool ayaa la rumaysan yahay inay hore u sameeyeen baaritaano hordhac ah oo ku saabsan helitaanka saxiixiisa. Si kastaba ha ahaatee, warbixin cusub oo ka timid Le Cube ayaa sheegaysa in Chelsea si degdeg ah u qaaday tallaabooyin horusocod leh si ay u niyad jebiyaan labada kooxood ee kale. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in Ekitike uu haatan si dhab ah u eegayo mustaqbalkiisa ciyaareed, maadaama laga saaray liiska xulka France ee tartanka Euro 21 jirada sababo la xiriira dhaawac dhanka dhabarka ah. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii koobnaa ee aan kugu soo gudbinayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga.
haddii aad ila dhamaadka muuqaalkana la soo gaartay ha ilaawin inaad muuqaalka laag saarto sidoo kalena aad sii shargarayso haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran intaan muuqaal midkaan lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo